saddex sano iyo bari ka badan aqoorta lug idinka saaran tahay oo shib soo waay madaxweynihii maanta daadlo wuxuu leeyahay waa in Soomaalidu iska aragta xaqiina arrintaasi waa inay dadka gobolka u dhashay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waa inay ka hadlaan waa inay u soo istaagaan waa inay dhahan maya that's enough is enough ma aqbaleen waa inaan dhahnaa qodobkaas wuxuu isii gudbinaa xaaladda siyaasadda maanta waddanka ka jirto waxaad ogeedeen baarlamaanka maalmood in la furay madaxweynahan uu ka qudbeeyey waxa qof walba Soomaaliya maanta joogo hadduu state kala joogo iyo hadduu xamar joogo oo wadnaha uu farta ku lahaaya oo raadinaya oo sugaaya 3 sano iyo bar madaxweynaha waa aamusnaay muxuu maanta ka sheegi doonaa doorashada qof walba ay la taagneed madaxweynaheena waa hadlay wuxuu yiri doorashada dhacayso waqtigeeda ku dhacaysa axzaab la isku soo dooranaa axzaab la dooranaa uu yiri qof walba markii iswarsaday waxay tiri madaxweynaha muu diyaar garoobay markaan gadaal u noqono madaxweynaha xisbi xataa ma dhisan xisbi la soo dooran waa leeyahay annaga muu nasira masabeeno noo sheega mas aqligeena hoose u isleeyahay khudbadiisa dhowr beri ka hor arzaar ku-xigeenka wuxuu geeyey application u geeyey guddiga doorashada u geeyey waa application u geeyey maaha inuu sajilay dalab u geeyey dalabku u geeyey shuruudihii laga rabo dhan hal mid oo ka oofiyo ma jirto oo aan ahayn in lacagta oo laga rabo kaliya uu soo dhiibay waxaa la siiyey liis oo la yidhi liiskaan oo dhan aa u baahan tahay soo buuxi waxaasoo dhan waxaa loogu talagalay tactiik dib loogu dhigaayo doorashadii xisbiga uu geeyey naftiisa magaciisa dad kaloo dhalinyaraha sheeganaya la soo sheegay oo dhahay xisbigan annagaa hore u sajilano annagaa iska loo geysan applicationkiisa waxaa marka noo muuqato madaxweynaha wuxuu noo sheegay inuuba serious ka ahayn daacad uusan ka ahayn dhab aysan ka ahayn xisbi uusan suubsanin sharciga doorashada maanta noo dhigan oo asaga uu leeyahay waan saxiixay waxaa ku qoran in xildhibaanadii wax la soo dooranayo ee inuu xisbiga wax la soo dooranayo kuma qorna asagana wuxuu leeyahay xisbiga la soo dooranayo axsaaba la soo dooranayo طبعا qofka xisbiga ka imaan kara laakiin kursiga qofka la dooranayo inuu qofka shakhsiga ah oo constituency-ga oo degmadaasi lagu astay inuu yahay ku qoran sharciga ma raba hadda kadib inuu bedelo mase sharciga asaga maba akhrinba ma ogin saas uu leeyahay sharciga waxaa ku qoran in la register gareynayo dadka oo weliba biometric lagu register gareynayo doorashada 6 bil ka hor indhaha iyo faraha laga qof walba laga register gareynayo si qofkii uu soo dhowr jeer codkiisa u dhiibanin lama suubinin qalabka lagu suubilay lama diyaarinin lama keenin dastuurkeena wuxuu qoraa xilliga oo waqti xilliyeedka oo madaxweynaha leeyahay inuu xilliyeysan yahay xildhibaanada baarlamaanka waqtigooda muddadooda inay xilliyeysan tahay ma wuxuu rabaa waqtigoo dhammaan inuu iska sii joogo wax kaloo raba ma jirto asaga iyo qaar ka mid ah guddoon ku-xigeenka eeyaasha ogolaha shacabka waxay ka shaqaynayaan ay rabaan inay wax walba inta tahay maxaa dhaca sharcigan aad arkaysaan February markuu madaxweynaha saxiixay oo ogolaha shacabka iyo aqalka la marsiinay qodobada maanta guddiga loo diray waa lagu dari karay markaas ay in lagu daro waxa markaas loogu dari waayay tactiik oo delay tactiik dib loo dhigo guddiga loo saaray delay tactiik ka mid tahay waxaasoo dhan waxay u socdaan in maaragtay madaxweynaha iyo golaha shacabka ay yiraahdaan maaragtay waqtigii markii la gaaro howlo badanaa dhiman lama soo bi karo waa sii joogeynaa waxaan rabaa mar kale inaan madaxweynaha ku yiraahdo kelmad maalin dhaweyd sanatarada iyo xildhibaanada baarlamaanka jimcaha ay ku yiraahdeen oo ah kelmadan meeshaas ku qoran darbigaas ku qoran mudan madaxweyne hoggaanka dalka inaad ku fashilantay ma ogtahay oo ma la socotaa سنتر بولشا سنتر افتن باستا هذا الكاسيري جزاه الله خيرا سنتر كلا ماشاس كدواقي حلبانا كدواقي waxaasoo dhan waxay ku tusinaysaa dareenka shacabku ay qabaan dareenka xildhibaanadu ay qabaan in madaxweynaha inta uu yimaado haddana uu sheegayo wax aan haba yaraatee
aan ahayn wixii laga sugayay sidii aana dhacday dadaa waxay leeyihiin xildhibaanadu maxay u hadleen intaan maaragtay waxay ogyihiin madaxweynaha waxa uu soo wado sidii nafteedaa dhacday wixii laga sugaayay oo dhan madaxweynaha midna nooma keenin waxaan rabnaa marka akhyaarta golaha shacabka joogto ee madaxweynaha u gurbaan tumayso ee dhehayso extension aan kuu suubinaynaa xaliimiyarey markii ay timaado 27 bisha oo ay tiraahdo gudoomiyaha guddiga doorashada madax bannaan ama guddiga ay yimaadaan ay dhahaan waxyaabaha naga dhiman November doorasho ma qaban karno 5 bilaan rabnaa 6 bilaan rabnaa qaar xildhibaanada golaha shacabka guddoonka ku-xigeenka ugu horeeyo waxay madaxweynaha u sheekeynayaan ama dhegta ugu sheegayaan inay golaha shacabka uga sharciyahayaan in 2 sano la sii joogo ama sanad la sii joogo ama 6 bil la sii joogo hal maalin xataa in la sii joogo annagu ma ogolaan doonaa haddii ilaah yaraa aniga xildhibaanaan ahay waa lay soo doortay berrini lay soo doortaan rabaa laakiin inaan dhagar iyo delay tactic iyo been aan shacabka u sheego inaan kusii joogo diyaaru ma ihi waxyaabaha noocaasna waxaan rabaa marka madaxweyneheena maxamed cabdullaahi farmaajo inaan dardaaran siiyo inaan idhahdo madaxweyne waxbaa lagu doortay 4 sano maandeeday ku siiyeen shacabkan Soomaaliyeed waa ku soo dhaweeyeen waxyaabaha aad sheegtay oo dhan waxaad tiri aniga jidadka xirxiran haddii la i doorto jidad la ima xiraaye baabuurta qufulaan gadaalka galaha ku tiri shacabka Soomaaliyeed kuwa gobolka banaadir kula joogay maanta iska dhaaf inaad jidadka xirnaa ka feedee waa ku sii qam ku sii siisay maanta waxay awood la yihiin islaanta umusho iyo gabadha umul qabato in isbeddelka laga gaarsii waayo oo meelay maran ay la yihiin joogan maanta cunuga ardaya oo u socdo jaamacad ama iskool u socdo waqti uu ku tago la yahay meesha u socday qaarkood ayagoo saf ku jiro oo meel xiran joogo ayaa bamtu iskula qarxiya arday badan oo jaamacadeed ku dhanteen madaxweyne shalana waxaa ballan qaaday inaad dhahday jid la sii xirxiraya ma jiro haddii aniga la doorto waxaan rabaa marka inaan kuu sheego ballantaadi ma aadan oofin waqtigaagiina waa dhammaaday sabab aan maalmo kugu sii darno oo aad noolo sii joogto adoon lagu soo dooran shacabku soo dooran annaga uma jeedno haba yaraatee madaxweynuhu ballankaaga oofi dadaa waxay ku leeyihiin shacabkaa ku jecel maalin dhaweydna khudbadaada waxaa ku jirta shacabkaan u soo celinaa waxaan u malaynaa dhowr asbuuc ka hor shacabkii yaraa oo wiilkii gabadha laga dilay oo magaalada muqdisho isku soo baxay inay tusaale kugu filan tahay wacyigelin kugu filan tahay ay wiilii gabadha ku dhintay shacabaa soo baxay dhalinyaro yaro ahaayeen oo careysan waxaan u maleynayaa inay boorsamiinto kugu filan tahay darsin iyo wacyi iyo waana kugu filan tahay shacabka meesha ay kaa joogaan waxay ahayd mar hore shalay oon fogeyn waxay ahayd xildhibaanadii sharafta lahaa shacabka matalayay baarlamaanku dhahay warkaaga waa been mana ku dhagaysan karno asfarin bay kugu yeeriyeen annaga maanta waxaan ku dhawahaynaa waa kula taliyohaynaa madaxweyne doorashada waqtigeedaa la rabaa doorashada waqtigeeda waxay ku dhici kartaa inaad dadka siyaasiyiinta ah oo stakeholderska ah maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii miis ay soo wada fadhiistaan oo ay ka heshiiyaan doorashada si ay u dhacayso waqtiga ay dhacayso iyo dadka maamulaayo iyo qaabka loo maamulaayo ma kaa yeelayno ciidan boliis ah haram cad dheh gorgor dheh qolo kale dheh inay wax kuu boobaan ma laga yeeli doono dad Soomaali waa soo jeedaan daraad ilmo iyo haween iyo dad mudaharaadaya soo baxa sawiradaada ku gubay magaalada xamar dhexdeeda oo runtii wax fiican aan ahayn darajadii iyo sharafkii maqaamkii dowladnimada madaxweynaha matalo heer waxaa gaarsiisay daraad ay sawirkaaga ku gubaan magaalada dhexdeeda shalayna xildhibaanada waxaa gaarsiisay inay firimbi dhexda kugu yeeriyaan
maanta waa kula hadloohaynaa waxaan ku leenaha war dadka ha wada hadlaano ha wada fadhiistaano maamulada ha fadhiistaano stakeholders kale ha fadhiisto axsaab siyaasadda ha fadhiisato soo fadhiiso waxa lagu shiyaan ku dhoohaynaa waxaan ka cabsanaynaa inaad dadka gaarsiisid in biri villada lagaa soo jiido madaxweynow waxaan rabnaa inaadan gaarsiin dadka soomaaliyeed meel xun inay bahasha naga gaarto waa ku baryaynaa waa ku tuugaynaa waa kaa codsanaynaa siyaasadda shay inta qaadata jeebka gasho kartid ma ahan maamulka waddankan shay adiga waxaa doonta aa ka suubi kartid ma ahan maamulka waddankan dadaa wax kula leh aqal saraa joogo waxaa jooga golo shacabaa joogo axsaab siyaasadeedaa jirto maamul goboleedaa jiro madaxweynow caddaan ajnabi soomaali qof walba way kula hadashay dadkaas intu isku imaadaan doorashada intaan wakhtigeeda la gaarin wakhtiga xildhibaanada uu dhacay intaan la gaarin wakhtiga madaxweynaha uu dhacay intaan la gaarin madaxweynuhu ha laysku yimaado ha la wada fadhiisto ha laga wada hadlo waxaan runtii aad u mahadcelinaa ama aan runtii soo dhoweynaa ra-iisul wasaaraha inuu yidhi doorashada wakhtigeeda ku dhacaysaa nooc kastoo doorasho dadku intooda badan ku heshii karaan ku dhacaysaa waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha inaa iraahdo warkaaga war hal mar la sheegay oo adoo naxsan aad sheegto inuuna noqon inuu noqdo war kaa soo go'ay oo dhab ah oo shacabka aad la wadaagto axsaabta aad la wadaagto maamulada aad la wadaagto dadka aad iskugu yeerto haddii madaxweynehi howshaas uu ka seexdo dhowrkaas qodobbo waxay iga tahay fartiin madaxweyneheenna aan doorannay u sacbinnay dadku u boodboodeen magaalada ku soo dhoweeyeen waxaan ka codsanaynaa magaaladaani sidii loogu soo dhoweeyey inuu asagana ugu soo dhoweeyo madaxweynihii ku xigo oo doorasho nadiifa uu suubiyo raalli layskaga yahay laysku jecel yahay qofna qof aysan xoog u sheeganin qofna qof aysan ciidan ku boobeen nidaam noocaas in loo suubiya jecelaha waxaan hilmaamoo ka tegey oon rabaa inaan wax yar ka taabto qodobada oo tagtiig dilayga ah oo la suubiyey iyo ulajeedada maanta laga leeyahay gobolka banaadir aqal sare waa dastuurka loo fura macnaha dastuurka doogis dastuurkaa lagu furi jiray oo la sugaayay in la yidhahdo waa la furaa 54 lagu daraa oo qaarkood ay 8 ka dhaheen qaarkood min 11 ay dhaheen ujeedada ka dambaysa maxay tahay waxaa la rabaa in labada aqal inta la isku keeno waxa la soo qoro oo gacantu taaga inta dhahan waa la asxiil la yiraahdo waxaan rabaa guddoonka golaha shacabka iyo guddoonka aqalka sarabo inaan xasuusiyo labadaasi aqal waa laba aqal oo kala madax bannaan dastuurkeena kuma qorno meel ay sharci isla suubinayaan dhexdoo labadoo isla joogo 3 sano markii ay dhisnaayeen labadaasi aqal ilaa iyo 22 sharci ayaa la gudbiyey oo la baasgareeyey oo aqal golaha shacabkana baasgareeyey aqalka sarena baasgareeyey midkoodna midka kale lama fadhin markii la baasgareeynayo sharciyadaas sideedana waxaa dadka Soomaaliyeed u suubsadeen aqal sare iyo golo shacab inay labada aqal iskontaroolaan ay ismiisaamaan oo isbaalansi gareeyaan waxaan rabnaa inaan u sheegno gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sarebo sharci ay isla ayagoo wada fadhiyo lagu ansixiyey inuuna sharci Soomaali ka ahayn xaashi wax lagu qoro waayo xaashi wax lagu qoro haddii kale habraaciyo dastuurka suubiyey oo suubiyeen xeerarka hoosaadka oo labada golob ay suubsadeen waa inuu sharci kastoo la suubinayo uu soo maraa xeer hoosaadkooda wuxuu qoraay iyo dastuurka wuxuu qoraay waa inuu 3 akhri soo maraa golaha shacabka ka doodaa guddi loo dhiibaa ka soo gudbiyaan kadib loo codeeyaa markii ka saddexaad la dhaafsiiyo markaas waa in loo diro aqalka sarena waa intii oo kale inuu soo marsiiyo laakiin labada aqal la isku keenaa hal maray ansixinayaan forgery ku jiro khaa'inimo ku jirto waxa ku jiro sharci darro ku jirto dastuur jabina ku jirto wax walba oo waddankan dib u keeni lahaa ku jiro marka waxaan rabaa inaan la hadlo gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi waa nin oday in muddaha waddankaani maaragtay odayaashiisa ku jiray Soomaaliya intoo dhibaatada jirto oo waddanka joogay waxyaabaha la maleegaayo oo la rabo in dastuurka lagu furo oo haddii la rabo artikalka 89 la bedelo haddii la rabo aqal walba macnaha laga qaado aqal kasta macnaha laga qaada la rabaa marka 8 la gaarsiinaa la leeyahay article 89 wuxuu sheegaa in madaxweynaha ay soo doortaan labada aqal
sharciga madaxweynaha uu keensado rabana waxay ahayd artikalkaas in laga tago oo madaxweynaha shacabka doorto la yiraahdo hadhowtiin ma aragtay meel walba la soo boobo waxyaabo badan oo noocaas ah ku qarsan waxaan codsanaynaa anuu magaca golaha shacabka gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ah guddiga joogtada ka tirsan waxaan codsanaynaa labada aqal shaqadooda siday u kala baxsan tahay dastuurka uu kala bixiyey inay shaqadooda u gutaan haddii la yidhahdo labada aqalaa la isku keenaa markaasay sharci wada ansixinayaan forgery ku jiro ishoosgelisaa ku jiro khayaan baa ku jirto sharcina kama soo baxayo wixii ka soo baxa warqad la qoray noqonaysaa